صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا جمع مساجدكم ay ogaayeen jimci hore waxaynu ka hadalnay dhiirigelinay walaalaha heesaha iyo waxa la xiriira ka shaqeyn jiray ama ku hawlanaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga toobad keenay. sidii oo kale maantana waxayna soo booqday oo inoo yimi oo inala soo tukaday walaalkeen Maxamed Mubaarak. waxaad moodaa inuu afkee kala baxay. waxaan haddeer ka fikirayay inaan idhaahdo Maxamed BK baa lagu odhan jiray, BK-gaasi barak ku noqonaya insha Allah. marka isagaaba yidhi hadda intaan anigu odhan Maxamed Mubaarak, Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo. rabbina subxaana wa tacaala dhammaanteenba towbadda hayna waafajiyo. dhammaanteenba khalad iyo gaf waynu gallaa. sharaf bay u tahay qofku inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno, Ilaahay daraaddiina uga tago wax laga yaabo inuu markaa muuqaal ahaan dadka ugu muuqday inuu magac iyo maamuus iyo sharaf u leeyahay ama adduunyo in laga helayo. hadduu Ilaahay daraaddi uga tagana Ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu bedelaya wax ka khayr badan. waxaynu sidan u samaynaynaa, waxaynu dhiirigelinaynaa walaalaha kale iyagu weli kusii harsan oo aynu leenahay walaalaha faraha badan ee arrinkaa xumaantiisa dareemay ee Ilaahay daraaddi uga tegay sunno fiican bay jideeyeen oo ku dayasho mudan. idinkuna insha allahu tacaala waad ku dayan doontaan, sidaa ay yeeleen ayaad yeeli doontaan. dadka qaarkood oo khayrka dadka kala dagaalama, sharka iyo xumaantana ibliis u wakiishay inay u ololeeyaan, waxaa laga yaabaa qaarkoodna waabay yidhaahdeenbe inay yidhaahdaan ma qof gaala baa qofkii oo shahaada loo qabanaya. walaalkeen Maxamed iyo ragga la midkahay marka horeba dad muslimiina bay ahayd. inaguna waynu dambaabnaa, maaha macnaheedu inay iyagu un khalad ay ku jireen oo inagu aynaan khalad gelin, laakiin iyaga iyo dadka la midkahay sidaan jumcihii hore sheegay waxay dadka kale kaga duwan yihiin dad la eeganayo oo lagu dayanayo oo dad fara badani shaqada ay qabanayaan ay ku dambaabayeen ayay ahaayeen. haddii ay iyagu khaladka ka tagaanna dad fara badan tusaale u noqonaya oo ummadda dhexdeeda iyo gaar ahaan kuwii taageeri jiray insha allahu tacaala raad ku yeelanaya. ma nihin takfiiriyiin aaminsan qofka muslimka ah waxa weeyaan heesa oo muusig garaaca ama inanta tusaale ahaan isqaawisaa inay gaalo tahay. waxaynu aaminsanahay waxaas inuu macsiyo khalad yahay, waajibkuna uu yahay qof kasta oo muslim oo dambaaba inuu Ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno. fariinta ama dardaaranka walaalkeen aan siinayaa wuxuu yahay si gaarana insha Allah isagoo balbalaaran waa ugu sheegi doonaa inuu saaxiibadii hore bedelo oo saaxiibo ahlu khayra oo ahlu diin oo wanaagga tusaale ugu noqdo qowl iyo ficilba inuu yeesho. iyagana xiriirka ka dhaxeeya inuu noqdo inuu wanaagga u sheego. waa dad walaalaheena oo muslimiina oo iyaga laftoodana uu ugu baaqo khayrkii wanaagga Ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey. waxaa kaloo aan u dardaarmayaa heese badanoo uu leeyahay, muuqaalo badanoo uu leeyahay baa duuban oo maanta YouTube-ka ku jira. waxaa ka mid a markaa towbadda wanaagsan ee Ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay qofku wixii hore inuu masaxo. wuu sheegay isagu iyo dadkii uu u sheegay arrinta noocaasiya ku raaci lahaa inuu ka tegay oo Ilaahay daraaddii uu uga noqday. waxaadhay waxa weeye sidii sooraan oo kale. sooraan waa Cabdalla Diiriye sooraan uu geeriyooday, Ilaahay u naxariisto, isagoo mu'adin masjida buu geeriyooday. ninka riwaayadeeya maaha, waa sooraankii hore ee la yaqaanay. wuxuu sheegay oo marar fara badan uu baahiyey wax allaala wixii hees hore looga duubay iyo riwaayad in la masaxo oo isagu aanu mas-uul ka ahayn ciddii dambe waxa weeyaan dhegaysata. marka isagana insha allahu tacaala intaa dadka inuu u sheego waa ka codsanaya walaalkeen, waana soo dhaweynaya. wuxuu ina odhanaya baaraka allahu fiik. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa, shiikhana waan u hambaliyeynayaa, idinkuna waxaan idinka codsanayaa inay ii ducaysaan. aad baa u mahadsantihiin. maasha Allah. baaraka allahu fiik, jazaaka allah khayr. allah yubaarak. ma ka cabanaysaa gaastari? ma ka cabanaysaa lafa xanuun? sidoo kale ma ka cabanaysaa buurnaan xad dhaaf ah?